gabadhii ka qayb gashay quruxda Soomaaliya isla markaasina doonaysay in ay Afrika ka qayb gasho Badriya oo arin mucjiso ah la kulantay kadib markii ay salaada ka tagtay isla markaasina xanuunsatay maskaxdana buro uga soo baxday ayaa baraha bulshada soo dhigtay hadallo qiiro badan dad badanna ka ilmeysiisay gabadhii caanka ka ahayd TikTok oo hadda mucjiso xoogan la tusay kadib markii ay xanuunsatay Badriya Cusmaan oo ah reer Muqdisho ayaa waxa ay barteeda TikTok soo dhigtay in ay xanuunsatay isla markaasina xanuunkeeda haddii aan u soo laabano Badriya ayaa la tusay arin mucjiso ah waxay sheegtay in ay salaada ka tagtagi jirtay isla markaasina markii ay xanuunsatay asxaabteedii qof soo xiriiriya ay waysay ayadoo sii hadlaysa ayaa waxa ay tiri waxa isdhahay dadkii asxaabtaada ahay maxay ku soo xiriirin la yihiin waan isweydiiyay waan ka murugooday kadib waxay tiri bal dadkaas ha kuu dambeeyee allihii ku abuurtay maxaad u kaalmo weydiisan la'dahay waan isxisaabiyey waan iscanaantay ayay tiri Badriya isla markaasina waxay sheegtay in ay nafteeda canaanatay ilmeysay maxaa salaada ugu tagtaa haddii aad dhimatay ka waran ilaahay xaggiisa ma u shaqaysatay waan iscanaantay ayay tiri maxaa yeelay salaada marna waan tukan jiray marna waa ka tagi jiray sida ay sheegtay tusaale duhur ayaa dukan jiray casr waaba ka tagi jiray arrimo kale iyo wax kale ayaan iska samaysan jiray ayay tiri waan iscanaantay mucjisadii geerida ayaa lay tusay waxay dhahday Allah subhanahu wa ta'ala ayaa dambi ka galay ayay tiri qofkii qaldamaa Allahna u soo laabtaa Allah wuu u dimi dhaafaya Badriya ayaa ka qayb gashay 22kii sanadkii la soo dhaafay October tartanka gabdhaha Soomaaliyeed ee quruxda Miss Somali meel fiican ayay ka gashay Badriya reer Muqdisho ama Galmudug ayay matalaysay waa gabar ganacsato ah laakiin hadda codsi ayay soo bandhigatay gabadhii waa ay xanuunsatay sida ay sheegtay madaxa ayaa bur uga soo baxay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha caafiyo barteeda TikTok ayay soo dhigtay ayadoo dhahday waxaan ummadda Soomaaliyeed uga baahanahay duco iyo garab istaag ma aha in lacag lay aruuriyo laakiin waxay sheegtay in ay ganacsi leedahay ganacsigeedana ay u baahan tahay in wax laga iibsado maadaama madaxa burada haddii la qalayo 22,000 ay ku kacayso ama Turkiga ama Hindiya magaalada Muqdisho xamarweyne ayay dukaanku leedahay waxay iibisaa waxyaabaha gabdhaha sida timaha iyo kareemada waxyaabo caafimaad natural ah ayay iibisaa Badriyo ayaa sheegtay in madaxa uu bur uga soo baxay 24 saacna faleembooyin mararka qaar ay qaadato laakiin waxa ay leedahay markii salaada aan ka tagay mucjisadan ayaa lay tusay hadda waan xanuunsanahay dadkii ayay ma aragtay sheegtay in ganacsigeeda lagu garab siiyo si ay ayada qarashka iskaga bixiso Badriya ayaa hooyo ama kaalmo ama garab u ah reerkeeda oo ku sugan magaalada Muqdisho Badriyo ayaa dhowr muuqaal soo duubtay isla markaasina dad badan ayaa ka falceliyay xanuunkeeda ayaa dad badan la qiiroodeen arinta ayay soo bandhigtay iyadoo qayb u kala dhigtay isla markaasina sheegtay in taariku salaad mararka qaar ay noqonaysay laakiin hadda ay ka shalayday haddana ay leedahay salaada yaan laga tagin istighfaarta yaan laga tagin ayay leedahay gabadhii u tartantay quruxda Soomaaliya oo iminka la xanuunsanaysa madax bur uga soo baxay kadib markii salaada Ilaahay ay ka tagtay mucjisana la tusay fadlan haddii aad ka mid tahay dadka Muqdisho jooga ee wax ka iibsada gabadhaas dukaankeeda ama ganacsigeeda ha loo kala kiciyo si ay u iibsato ay madaxa burada uga soo baxday ay qalin ugu samayso Allah subhanahu wa ta'ala caafimaad ayaan u baryaynaa gabadha Soomaaliyeed ee walaashayn ah adinkana aad u soo duceysaan Badriya Cusmaan oo ku xanuunsanaysa magaalada Muqdisho laakiin hadda way caafimaad qabtaa qalin ayayna rabtaa inay gasho kadib markii mucjisadaasi la tusay